السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي ميل كستود جوجتان aad baan idin salaamayaa. waxaan rajeynayaa idin caafimaad qabtaan, intii bogta allaha caafiyo, intii ciilan allaha ciil tiro. waxaan idin leeyahay soo dhawaada, subscribe-ka inoo saara, like-ta inoo saara, share-ta inoogu qabta, daweyna kaakaa kumanka ku soo yaaca ya. maanta waxaan inoo hayaa qiso aad u xanuun badan. markii aan akhrisanayana xaqiiqada waxay tahay waan ilmeeyay. waxay ku saabsantahay qisadani waxay ku socotaa maamo aad u weyn oo da'deedu tahay 77 sano. waa maamo 77 sano ayay ku socotaa oo guursatay wiil yar oo da'diisu tahay 25 sano ay guursatay. marka qisadii oo faahfaahsan haddaan inoo soo gudbin doonaa. dhagaysi wanaagsan, la socod wanaagsan. qisadu waxay ka bilaabantay maamadan bay horta ka bilaabantay. xogaa baan dib inoo celinayaa inaan waqtigii hore waa inaan ka sheekayno nolosheedii hore. maamadan 77 sano jirta ku socoto qisadani iyadoo 25 sano jirtay ayaa waxaa la siiyey nin jira 40 sano. marka iyada oday u ah ayaa la siiyey. odaygii reerkoogaana ku daray, iyadu may keensan. odaygii waxay isqabeen de muddo badan bay isqabeen. ilaahayna wuxuu kala siiyey 2 hablood bay isu dhaleen. 2dii hablood odaygii markii uu geeriyooday markay isqabeen ilaa 17 sano ayuu odaygii geeriyooday. kadibna waxaa dhacday inay hablihii haddii waalid ka mid dhanta uu dhinto ay waqtigiisii galo, ilaahay u naxariistay uu waqtigiisii galo, ka kale keligii ubadku way ku soo istaagaan. ilmihii ilaahay hanuuniye wanaajiyey mooyaane. waxaa dhacday markaa inay inantii 2dii hablood tii yarayd inay bilowday muqaadaraad, xashiishad cabtay ooy hawada ka baxday. kadib markay muddo waday sheekadii ayaa waxaa dhacday inay inantii sidii ku dhimatay, sidii hawlaha ugu jirtay in meel xun lagu dilay ay kuna baxday, dadkii dilayna la waayay. markaas saantu islaan lacag labay ahayd. inanteedii kale ayaa iyaduna guursatay. markii guursatay waxay dhashay inanteediina 3 hablood bay dhashay. 3 hablood markay dhashay ay tii 3aad jirto sanad ayuu inanta ninkeedii la guursaday. wuxuuna doontay gabadh kale. umulla way ahayd. dumarku markay had iyo jeer umusha yihiin dhibaatada ma xamilaan. iyadoo dumarka qaar weliba waqtiga umusha waxaa jira qaar xanuun ku dhaco. anigu kale dhakhtar ma ihi oo ma garanayo xanuunka imaka magaciisa xataa idiima sheegi karo, laakiin xanuun baa jira mararka qaar dumarku markay umusha yihiin ku dhaca oo ay sidii wax yara xanuunsanaya ay noqdaan. xoog dhibirka uma noqdaan, laakiin xogaa way siyara bedelaan, xataa way soo kululaadaan. marka waxba hadalyayd ku daalinee inantii iyadoo marka hore marxaladda ku jirta, sidii hooyadeed ka sheekaysay, iyadoo marxaladda ku jirta ayaa waxaa dhacday inay maxay ahayd toy uu ninkeedii ay maqasho inuu naag la guursaday oo ay shaqo ugu maqnaa. ninkii shaqada ugu maqnaa oo naag guursaday ayay ku warheshay. markii ay ku tiri madhabbaa inaad guursatay, wuxuu ku yidhi haa waan guursaday, haddaad ku gelayso ku gal, haddii kalena ka dhufo. gabadhii way xanuunsatay. dhiigkar baa ku dhuftay. xaalkeedu wuu adkaaday. markii dambena waxayba iska noqotay qof dhibirka ah oo aan xataa carruurtii haysan karayn
oo waalan oo mararka qaar maryaha la baxda ayay noqotay. kadib hooyadeed waxay geysay dhakhtar waalida bay geysay oo waxa lagu yiri halkan ay ku jira Sauda. kadib halkii bay ku jirto, halkii bay ku xareysay hooyadeed. caruurtii iyadu Ilaahay baday hooyadeed oo haysay. markii ilaa muddo caruurtii haysay oo islaantii waqtiga ay marayso 77 waa waqtiga ay gashay, ayaa waxa dhacday inay maalmaha ka mid ah way soo adeegaysay. 3 ciyaal ahaana waxay ku maqnaayeen iskuulka. marka islaantu waa baday islaan iska da'o marka hore aan waxba hayn kareynin, laakiin da'daad mooday ma aha wali. islaanteena 77 jirta mar hore dhacday, laakiin iyadu wali way haysato, way jalam lahayd. kadib iyadoo soo adeegtay oo adeegii gaadhigii ka guranaysa ayaa waxay aragtay wiil baa meesha soo maray. wiilkiiba waxa ku tiriyay caawi. wiilkiiba wuu caawiyey, alaabtiiba gudaha la geliyey. markuu alaabtii gudaha la geliyey ay inankii naxariistiisii uu ku soo leexday si alaabta ugu gurayay. islaantii qac way ka heshay inankii. waa 77 25 jir ka helay. kadibna markay inankii ka heshay ayay ku tiri soo soco hore soo soco. mayane markuu alaabtii u dhigay waad mahadsantahay, alaabta maan kuu soo guri. soo soco mayana, soo gal guriga, soo gal maamo. markii maama la islahaa, laakiin sheekadu maamo ma aha. islaantu waa islaan kacsanba. waxba hadaliyay ku daalinay inankii uu soo socday. sharaab bay u shubtay, uu fadhiistay. maxaad cabbi karaysaa bay ku tiri. uu fadhiistay. way iswareysteen. inanku waaba inaan iska tabaalaysan oo dhibaataysan buu ahaa. kadib waxa ku tiri way markii ay iswareysteen ayuu ku yiri maadaa kaligaa degan. say ku tiri may waxaan hayaa caruuro yaryar oo inantayda dhashay. dhibkeedii oo dhan bay uga warantay. isagiina dhibtiisii oo dhan buu uga warramay. wuxuu ku yiri anigu family ma lihi, waxaan ku soo koray meelaha agoonta, muddo badanna aan ku jiray. markii aan xoga gaadhin nin weyn noqday aan ka yimid meeshii. marka marna shaqo qowto daruurigaygan marna hela waxaan cuni lahaa, marna maba helo. hooyna ma lihi marba meel baan seexdaa. waxay ku tiri lambarkaaga ii qor. wuxuu ku yiri moobilba maba lihiba. maxaan lambarkuu qori? ilaa moobil baan ahay. marka ma lihi. dabeetana waxay ku tiri berrito ii kaala. waqtigaas inankii wuu u yimid. way kaxaysay. waxay u soo iibisay bahal moobiloo kala jiidan. waxay u soo iibisay dhar. waxaan ku yiri kaala iska arag. way baashirtay. inankii isagu maamadiibu dabada hayaa. laakiin iyada filinkii maamo soo gashiibaa maamadi ay ahayde maama dambe ma jirto. walaashaasay haysaa. saaxiib baynu noqonay. dad saaxiibaynu noqonanaa. waa ka iyadoo saaxiibkeed. waxaa hadiyay ku daalin. kadib markii dambe habeenkii dambe u yeedhay inankii ii kaale bay ku tiri waxaan doonayaa caawa inay soo wada cashayna. way soo wada casheeyeen. kadib waxay ku tiri inanahaw waan kaa helay, waanan kuga haystaa. maxaa xala? waan ku rabaaye. inankii u naxay. af wax cuni xisho ma maqash. af wax cuni xisho ayuu inankii hadalba ku guray. islaantan dee bilaash kumay baashireen buu yidhi, warba waa iska cadyahay. kadib markay aragtay isagoo saa u yara jeejeedsanayo in daahaya bay ku tiri qasab wax qasabay ma jiraan, kuma qasbayo, kasoo fikir. waayo waqti baan ku siinayaa, kasoo fikir. laakiin waxaan kuu sheegayaa anigu islaan lacag le baanahay, lacag baan haystaa, wax iga maqan ma jirto. waxaan rabaa dee waynu isu baahanay. adna waad ii baahan tahay, adna waan kuu baahanay. marka ha ismartiyayne. afkaagu iyo ku xun wax kastood u baahan tahay aniga waad iga helaysaa. wasakal dunyaha
gebigeeda ma anaa laygu yimaadaa waayahay buu yidhi waan ka soo fikirayaa inankii habeenkii dambe ayuu u yimid wuxuu ku yidhi okay isagu waa duruuftiisaas ayaa u geysay uu kaga faa'iidaysanayaa iyaduna dee duruuftaasay kaga faa'iidaysanaysaa kadibna waxaa ku tiri waxaan doonayaaba inaynu isla wiigan isguursano waayahay buu ku yidhi guurkoogii baa dhacay way isguursadeen markay isguursadeen dee gurigiibuu ninkii la soo degay gurigii waxaa jooga halka ay u dhimatay ee u xanuunka badani ee sida runtii aad iiga qiiraysiisay waxay tahay ubadkaa yaryar ee hooyadoodna ilaahay xusgoodii ka qaaday ayeydoodna dee habartaa dhaqaaqday ay tahay ee nin doonatay dee waqtigaasay joogtaa nin waxay ku falaso la garan maayo laakiin waa taa dee ninu dhaqaaqday carruurtii waxay noqotay dayac bay iska noqdeen weliba dayac kale maaha oo carruurtu maaha carruur si yaryaroo 2 sano iyo ma aha inanta u rooni waxay jirtaa 10 sano inanta kusoo xigtaana waxay jirtaa 7 sano ta u yarina waa 5 jir kadib ninkii markuu muddo gurigii joogay ayuu xusameeyey dee ilan waa islaantaa weynay ka dhammaatay fiidka dhacasiiyo inankan yare iskuma gelayaane waad fahmaysaan carruurtii yaryaraydba ninkii mas buu ku noqdo carruurtii buu dhabarka ka qaniinay carruurtii yaryarayd buu u tegay labadii habloodee roonroonaa islaantu markii fiid ka dhacdo markii dambe siduu sheegayay markii isaga la wareystay kiniin hurdo uu isticmaali jirayba uu seexin jiray laakiin ayaamihii hore fiidka markay ka yara dhacdaa buu kasoo yaro hoostusa sidii xaamka galay oo dhab halkan u ka camirtaa markii dambe inantii yarayd labada hablood ee reer roonroon labadaba habeenba tuu doono ayuu u tegi jiray tii yarayd labada way xanuunsatay sakaraad bay noqotay mar kastoy iskuulka tagto cid u war haysaana ma jirto xanuun iyo dhibaato way u dhammaatay hablaha yaryar mar kasta oo ay iskuulkii markay tagtay mar kasta xamaamka gasho halkan cid ogaanaysa gurigooga dhexdiisa ma jirto qof dhalinyari ma joogo hooyadii dhashay waa taa xanuunsanaysaa islaantii waa tan waalatay ee inanka yar laabta kaga jirtay ku naban isagiina waa xagan ka shaqaystay ka miistay waxay samaysay carruurtu guriga markay joogaan ay xamaamka galaanba hablaha yaryari oohin iyo sakaraad uu u dhammaaday laakiin markay iskuulka tagaan maalmihii dambe tii yarayd ayaa 7 jirkeeda besteed noqotay marka ay xamaamka gasho waa inay oydo oo ka adigu dhibto say u ooyisay inantii yarayd wiidooysay dhowr cisho dee inta imanaysayba iskuulka intan dee uu ninkan gurigan joogayba ooyisay maalintii dambe gabadha masaxda nadiifisa xamaamada ayaa waxay aragtay iskuulka nadiifisa waxay aragtay inantii yarayd oo ooyeysa oo tagto maxaa ku helay bay ku tiri waxba bay ku tiri iska ciyaarnay waxay ka baqanaysaa haddaydu afkiina ka yeedhaan buu yidhi way gowracayaa ciyaalka yarar marka qofna ma hadli karo midna ma sheegi karto kadib waxay samaysay haddana maalintii labaad bay aragtiyada ooyeysa macalimadeedii baa uga yeedhay wax ku tiri nanta yar maalin horena waan arkay xamaamkii ka dhex ooyeysay maantana way ooyeysaa maxaa ku dhacay waxaa ku tiri xamaamkii bay ugu gashay maxaa ku helay way waraysatay si maskixiyanay u baadhay way kaxaysay galaaskii ha ku noqon bay tiro halkan la fadhiisatay inantii yarayd bay waraysatay say waxbada waxay sii soo adkaynaysay ayaa markii dambe waxay ku tiri kaadiday gubasa waata ku tiri maxaa ku helay waxba imii helin haye ayayaan la hadlayaa hooyadaabaan la hadlayaa ayaydaabaan la hadlayaa waxaan u sheegayaa inaad xanuunsanayso
si dhakhtar laguu geeyo. kadib inantii yareed oo hin waad qabsatay. hay sheegin way ii dhammaatay noloshayda haddaad sheegto. hooyadayna ma joogto, way xanuunsanaysaa, waata jeelka ku jirta. khalaas haddaad sheegto maanta way ii dhammaatay. oo waayo maxaa ku helay? ayeydii ninka qaba ayaa i isticmaala. ayeydaa ninka qaba haa, aniga iyo walaashayba una isticmaalaa. kadib waxay tiri inantii yareed booliskay wacday, dhakhtar baa toos loo geeyay. islaantii iyo ninkii oo guriga jooga ayaa loogu tagay, waana la soo xidhay. waxaa lagu xukumay markaa ninkii 12 sano ayaa lagu xukumay. 12 sano lagu xukumay inuu saqiir soojis uu sameeyey. ninkan ilmo yaro underage dee uu ku xadgudbay. 12 sano lagu xukumay. islaantiina waa la iska soo daayay. waa iyadu markii la wareystay wax dambiya may lahayn, isna uu qirtay. waa la iska soo daayay maamadii. isagiina 12 sano lagu xukumay. hadda wuxuu xidhan yahay 3 sano. 9 sano oo kale ilaa hadda. sheekadani waxay dhacday 17kii bay dhacday bishii 11aad ayuu qashifmay ninku. waqtigu qashifmay weeyaan, waqtigu isticmaalaya waa muddo, laakiin waqtigu qashifmay ee la xidhay waa bishii 11aad ayaa u qashifmay 2017kii. hadda markaa 3 sano xidhan yahay. anu waxaan odhan lahaa ciqaabtiisa ninkaas yaan lagaba soo saarin. wax yar baa lagu xukumay, yaan laga soo saarin. daa'iman halkaa ha ku dhammaystaan odhan lahaa. weliba waxaan odhan lahaa la dilo. waan la dileen. markaa asxaabay idinku maxaa odhan lahaydeen? waxaynu aragnaa badanaa hooyooyin markay ninka kala tagaan, ninka la guursado hablo yaryar iyagoo wata. kuwaana maxaad odhan lahaydeen? inaad uga caqli celin lahaydeen? anu waxaa odhan lahaa inantu markay gabadhu hablo wadato wayna nin gurigeeda keenin, waayo wax fiican ma aha. nin aanad ma aamini, kalsoonidii way hadda isbedel weyn baa dhacay iyo fusuq badan, markaa way adkaatay. markaa maadaama ona hadday hooyadeed kaga imanayso, inkastoy dhibaato tahayba ina inan yar oo dhashay hooyo iyo ficiistoona aad kaga timaado. markaa intaasna waxay ka tahay waano alla is ilaaliyo. caruurtaa yaryarna waxaa la ilaahay ha u gargaaro. waa kolley maskaxda damage weyn baa ka soo gaadhay. xaalkoodu ma yaraa. ilmo yaro isagoo yar ay dhibaatada intaa leega ku dhacday. markaa wallaahi waa dhibaato. waa caruur bilaa hooyo ahuun. mar haddii hooyadood xuskii ilaahay ka qaaday dee inay dhimatay unbay ka dhigantay. islaantiina dee waalatay. marka waxaa idin leeyahay asxaabta, intaasaan idinkaga tegi doonaa. intaynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale ah. waxaan leeyahay inta habeen u tahay, inta maalin u tahayba intuba ha idii wacnaato. waxa idii tahayba ha idii wacnaato. waxaan idin rajaynayaa khayr iyo caafimaad. waxaan idinkaga tegayaa ammaano allah. waxaan leeyahay subscribe-ka dhac ku siiya, like-tana la booba, waayo intuba waxba idinkama dhimayso. kolliba waad ag maraysaane dhac ku sii siiya, waana daawanaysaane. waxaad idina dhac ku siisaan. marka waxaan idin leeyahay asxaabta ammaano allah.